laba qodob oo aad ku dhisi karto kalsoonida naftaada. dadka badankiisa waxay aad iskugu taxallujiyaan dhismaha jirkooda iyo qurxinta muuqaalka kore, danna kama ay galaan wax badan dhismaha awoodda naftooda iyo kobcinta caqligooda. inkastoo jirto cilmi baadhis badan oo ku saabsan dhismaha maskaxda iyo layli badan oo la sameeyey, haddana waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha la sameeyey laba qodob. qodobka koowaad, naftaada la sheekayso. waxaadna oola sheekaysataa sida saaxiib aad ku kalsoon tahay. culimada baadha maskaxda iyo caqliga aadamaha waxay sheegeen cilmi baadhis cusub oo soo saareen in ruuxa bini-aadamka maalin kasta oo kusoo dhacdo wax ka badan 70,000 oo fikradood. taasina waxay ka dhigan tahay in maalin kasta ay maskaxdaada kusoo xerogeliso in ka badan 70,000 oo fikrad oo aad ka faa'iidaysani karto. fikradaha maskaxda u marahayo sida sawirada telefishinka oo kale waxay saameyn ballaaran ku yeeshaan qaab dhaqankaaga, waxayna isku bedelaan waaqic iyo xaalad aad ku dhex nooshahay. tusaale ahaan, maanta oo dhan haddaad ka fikirto shukaansi iyo shahwo iyo jacayl, qasab waxaa imaanaya inaad waxaad ka fikirayso ku tallaabo qaado raadintiisa. waxaa habboon inaad marka hore maskaxdaada nadiif ka dhigto oo aad ka fikirto wixii ku anfici karo adduuniya aakharaba. waxaadna noqotaa ruux yidadiilo fiican leh oo markastoo dhinaca positiveka ka fikiro. ha noqonin ruux balaasheeg ah had iyo jeerba. haddaad naftaada ugu sheekayso inaad heli doonin weligaa shaqo heblo, ama hadalkaaga aan xataa cidna dhagaysani doonin oo lagu liidi doono, ama aad isku aragto inaad waxba dadka agtooda ka ahayn, sidaas darteed shaqadaasi aad ku waayi doontid, fikirka noocaasa ayaa ah dabaalxumada aad hiriqa ka bilowday, ayada ayaana run kugu noqon doonto. waxaasoo dhanna waxay ku bilowdeen qaabka aad naftaada ogala sheekaysatay arrimahaas iyo sida aad isku brograamisay. marka waxaad markasta ku dadaashaa sheekada naftaada iyo adiga idiin dhaxayso inay ahaato mid positive ah oo saadaal wanaagsan xambaarsan iyo isku kalsooni. markastoo naftaada kugu sheekayso inaad tahay ruux fashilan oo guul daraystay, waxaad isku sheegtaa in waxaasi aysan run ahayn oo nasiibkaaga aad qabtid wixii ilaahay kuu qoreen aad waayi doonin, oo awood iyo shaqana aad qaban karto. qodobka labaad, waxaad isku daydaa inaad kontaroosho dareenkaaga. haddaad isku fasaxdo dareenkaaga adoo ka yaaban ceeb ama sharaf dhac, ama in lagu liido, ama in lagu bogi waayo, mise inay dadku kaa sheegaan wax, haddaad isku fasaxdo dareenka kaaga imanhayo arrimahaasi, waxaad halis u tahay inaad lumiso awoodda iyo isku kalsoonida naftaada. ma jirta adduunkan ruuxaanan ku dhicin arrin u keeni karto in ama ceeb daawici karto shakhsiyadiisa siday dooniba ha ku imaatee. dhibka ugu weynina ma aha inaad ceeb leedahay, ee dhibka ugu weyn waa inaad markasta ka walbahaarto qaladkii kaa dhacay oo kugu keeni karto inaad noqoto ruux aanan dhiiran karin oo gaabsi badan. ha isku fasixin dareenka caynkaasi oo iska soo qaad ruux dadka la mid ah. haddii kale maskaxdaada iyo awooddaada ayaad weeqaysaa. wax badan ood qaban lahaydna xataa oo aad dadka kale ku dhaami lahaydna waad gabaysaa. لا نحتاج المال